maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa uu magacaabay gudoomiyaasha deegaanada Mareere iyo Sabiid oo dhawaan dawladda Soomaaliya ciidamadeeda ay la wareegeen. Fafaahinta warkan waxay noo soo diray wariyaheena Cabdiwali Cali online. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibrahim Aadan Cali Najax ayaa magacaabay gudoomiyaasha deegaanada Sabiid iyo Mareere oo hoos yimaada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose kuwaas oo dhawaan ciidanka dawladda ay gacanta ku dhigeen waxaana saxaafadda u akhriyay gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim Ibrahim 19 warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose kuna socoto mudane Cusmaan Cali Birka ogeysiinteedina ay leeyihiin mas'uuliyiinta hoos ku qoran dhammaan laamaha amniga gudoomiyaha degmada Afgooye wasaaradda arrimaha gudaha dawladaha hoose iyo dib u heshiisiinta madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ujeedadeeduna ay ahayd magacaabid gudoomiyaha deegaanka Mareere ee degmada Afgooye markuu arkay baahida loo qabo buuxinta jagada gudoomiyaha deegaanka Mareere ee degmada Afgooye markuu arkay soo jeedinta gudoomiyaha degmada Afgooye waaya aragnimada kartida iyo aqoonta uu u leeyahay mudanaha xilka loo magacaabay markuu garowsaday in loo baahan yahay deegaanka Mareere in uu helo maamul baahida shacabka ka turjuma markuu ku qancay in uu hanan karo xilka loo magacaabay waxa uu go'aansaday in loo magacaabo gudoomiyaha deegaanka Mareere ee degmada Afgooye mudane Cusmaan Cali Birka ay u soo xuleen amniga iyo midda nololeed ee shacabka meelaha ku nool taasoo noo fududeysay in deegaanka Mareere iyo deegaanka Sabiid iyo Aanoole intaba in loo magacaabo maanta maamul si iftiinka dawladnimada loo gaarsiiyo meel walba oo lagu xoreeyo cadawgan Soomaaliyeed jiritaanka dadka dalka iyo diinta intaba ka soo horjeeda waxaan rabaa maamulka degmada iyo hay'adaha amnigaba inay la shaqeeyaan maamulkan cusub oo halkaa hadda loo magacaabay si ay waajibaadkooda u gutaan annaga ka maamul ahaan maamulka gobolka Shabeellaha Hoose anoo ka wakiila golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen waxaan idin ballan qaadaynaa in adeega dawliga la gaarsiiyo meel walba oo gobolkan ka mid ah adeega iyo midnimada shacabkana aan annaga hormuud ka noqono si dalkan iyo dadkaanba loo badbaadiyo Shabeellaha Hoose oo la xoreeyay waxay ka dhigan tahay Soomaaliya oo dhan la xoreeyay Cabdiwali Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose